Assalaamu calaykum. Waxa waa sheekha hoggaanka amiirka dhakhaatiirta macalimka saddexaad Aristotle iyo Farabi dabadood Abu Cali Xuseen bin Cabdillaahi bin Xasan bin Cali ibnu Siina. Wuxuu ku dhashay tuulo la odhan jiray Afshana oo u dhoweyd Bukhaara, haatana loo yaqaan Uzbekistan, 22 August 980 miilaadiga oo ku beegan 370 hijriga. Diintiisa waxay ahayd Islaam. Waxa uu ahaa caalim dhinaca falaga, gabayaa, dhakhtar iyo caalim dhanka fiisikiska. Waxa uu ku hadli jiray Carabiga iyo Farrisiga. Waxa uu alifay 200 oo kitaab. Intiisa badan wuxuu kaga hadlayay falsafadda iyo caafimaadka. Waxa uu bilaabay cilmiga caafimaadka isagoo da'da 16 jirka. Waxa uu ahaa dhakhtar ku takhasusay qalliinka sida bawaasiirta, unugyada xumaaday ee kansarku gaadhay. Waxa uu daahfayday gooryaanka jilaabeedka oo 900 oo sano kaga horreeyay aqoonyahankii reer Talyaani. Aakhirkii waxa uu noqday ruux uu si toddobaadle ah xanuunku u soo rito. Waxa uu geeriyooday isagoo 58 jir ah 1730 miilaadiga 21 Juun. Waxa uu ku dhintay Hamadan oo hadda loo yaqaan Iiraan.